السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada channelka ruuxi home decor waa walaashiin raxmi ruuxi maanta waxay idin wadaa mandazi maasha Allah oo lagu sameynayo caanaha qumbaha insha Allah. mandazi anazi yaa la dhahaa maxaa waye reer Mombaasadka zaaid u karsadaan insha Allah, maadaama reer Mombaasa leeyahay waa inaa la xusaahe alaabteenaya. marka saa ujeedin walaalaheyga intaan waxaa meesha kusoo diyaarsaday khamiir insha Allah iyo bur qumbihi iyo koob aan kusoo shubtay koob iyo laba koob baad actually bar kiila sameyn rabaa sokor haysta saliid waxyar heel waxyar iyo baking powder waxyar haysta insha Allah. intaas oo alaabta oo meesha ujeedina meesha yaala insha Allah. marka waxaan rabaa mandazi anazi inaan kasoo tuuro insha Allah oo macaan badan kaala arag buskud noqonayo asiga insha Allah waa idin tusi doona gudihiisa isku soo baxo insha Allah. marka saa ujeedin waa kana alaanitaan ka sameynayna insha Allah qumbaha sokorta saliida. marka insha Allah saa ujeedin waxaan kusoo shubay xoogo yar oo qumbaha kusoo shubay insha Allah. khamiirka kusoo daraya ka bacdi waxaan ku daraa insha Allah sokorta. kabacdi xoogaho waxaan sameynaya whiskigan ku daraa insha Allah aan ku qasaa kii lagu whiska gareeyo doolshaha insha Allah. waa kana iyo heelka kusoo daraa insha Allah. marka waxaan sameynaa intaana safiican isku qasaa insha Allah. saa ujeedin xoogo waxaa uu ku yar yahay qumbaha marka xoogo qumba kala gadaal ugu soo darsaday laakiin labada koob hataa kulli ma isticmaala insha Allah. waa kana waa soo qastay xoogo dhaako ku soo baxay because sokorta madow ahayd ma sokorta brown sugar ahayd. marka saa ujeedin burkii aan kusoo shubtay iyo saliid kiili burka kusoo gadiyay marka saliid waxay riiska laba qaado waay 1-2 qaado insha Allah iyo nus qaado baking powder geesaaga shoosa ujeedin. marka inta sidaas dhaxgelina si fiican waa isku qasaa insha Allah. marka aan qasno aan isku soo noqonayna insha Allah. waa kana burkeena maasha Allah si fiican uu noogu qasmade. marka waxaan sameynayaa laba jaba u kala jaray hal jab xaro inaa yar yar u jaro aan xirxiro insha Allah firinjeerka aa gashto kor meesha barafka soo markii la duwaayo labada xaba aad duwanaysa camal dhaqsaa ka soo baxsanaysa banaanka iska dhigay ka bacdi wuxuu sameynaa barafka ka dhacay ka bacdi uu ku khamiira marka seed waa duwanay insha Allah. saa ujeedin waa kana halka jabkoodi hore saanan ka soo dhigay inta soo gabal ka soo dhig 5 xabo. marka 5 xabo waxaan sameynaa bacaan ku xirxiraa bacda oo wrapping paper-ka aan mid walba ku raab gareena fiican ka bacdi insha Allah waxaan gelinayaa firinjeerka qaybta freezer-kan gelinaa insha Allah. waa kana qaybteen kale waxaan sameynaynaa insha Allah meeshaan maxaa dhahay aan kusoo safaa insha Allah waa jarjaraya ka bacdi insha Allah meesha kusoo safaa insha Allah. waa kana kistoo culeys aan ka dhigay zaaid inuu maxaa dhahay qafiif u noqdo mal rabo koos dhow si fiican u khamiiraayo. qaybta kalena waa kana saxankii hore waa soo saaray qaybta kalena saxankan foornadan soo saaray. marka waxaan sameynaa foornada hoos iska gelina laakiin dabka uma shiday insha Allah xoogo waxaan rabaa warmkaasito. waa kana burkeen uu soo khamiir maasha Allah saa ujeedin uu ku soo baxay marka waa duwaya soo soo furfuura sidan maasha Allah kaala arag waaye waa kana diyaar waaye. marka waxaan sameeyay qayb ice in sugar ku soo shubo qaybna baradhada seeta insha Allah u balansano lagu cuni rabaa. marka walaalahey qaaliga waxaa idin rajeenaa inaad ka hesheen hadaa channelkayga ku cusub tahay subscribe iyo saar please. haddii hore aad joogtana comment iyo share insha Allah iyo like hadaa ka hesho like iyo saar insha Allah. marka waxaa idinkaaga tagaya walaalahey qaaliga sidaas iyo haween wanaagsan. I hope inaad try gareyn doontiin baradhada seetan hadaa ka hesheen insha Allah waxaa waaye ila soo socodsii insha Allah sidaa u sameynayo cause waxaan ku darsadaa gram flour insha Allah iyadana saa u sameeyay waa idin la soo qaybsan doonaa commentiga igu dhaafa insha Allah hadaa ka hesheen iyadana waa idin soo sameyn doonaa waa idin soo gelinaa walaalahey qaaliga hope inaad ka hesheen. good night, bye bye.